الحمد لله الله دمانتين هلكان سوكاي كان الحمد لله الله السبب روبك يدبع كستميش اي كود عيشو الحمد لله الله قفك بنا آذنك تركيسة سميي وعجيبك أرنهانتي مركاد آد أفيرشته وحن قادنا اي جلاس anonymous glass every time an glass ka soo galo waxay ii ahayd wax lagu cibro qaato macallinkayga anonymous glass waa joogaa caawaq salaan and every time an glass ka soo galo waxay ii ahayd waxaan ku cibro qaato qofka bini aadanka jirkiisa sidoo u shaqeeyo laf walba sida ay lafta kale ugu baahan tahay oo ay isugu xiran yihiin xididka masalada siday u wada shaqeeyaan marmarka qaar waxaad arkaysaa waxyaabo aad runtii aad ula yaabayso marka alxamdulilah waxaan aaminsanahay haddii dunida oo dhan isku tagto dadka sheegtay inay yihiin dadka ugu quwadaha badan adduunka whatever they call themselves G8 whatever they call themselves iyo wadamada adduunka ugu quwadaha badan hadday isu tagto qof bini aadan ah korkiisa iyo qofka maaragtay bini aadan inay sameeyaan waa waxaan macquul ahayn oo aan suuro galaynin not even inay sameeyaan laakiin wax u dhow xataa inay sameeyaan waa wax aanan laga sugaynin inay dhacdo marka alxamdulilah ilaahay baa mahad leh waxaan rabaa laba eray inaan ka dhaho qabyaaladda iyo qabiilka farqiga u dhaxeeya dadka waxaad u malaysaa dadka Soomaaliyeed inay isku qaldaan qabyaaladda iyo qabiilka farqiga u dhaxeeya qabyaaladdu aan ku bilaabo qabiilku waa abtirsigaaga iyo meesha aad ka soo jeedo qabiilku waa qof walba aabihiis ilaa intaad rabto sii soco aad ku abtirsato ayaa qabiil la yiraahdaa laakiin qabyaaladdu maxay tahay qabyaaladdu waxay tahay ku dhaqanka qabiilka ee xun ee qurunka ah ee aan wanaagsanayn sida iskala saarka inaan hoos u fiirino midba kale inuu hoos u fiiriyo inaan isku guursano qabiil inaan qabiil isugu diidno inaan maaragtay gabdhaheena aan ku bixino iyo waxyaalaha la mid ah marka qurunkaas iyo xumaantaas qabiilka dhaliyay ayaa qabyaaladda la yiraahdaa marka waxaan rabaa caawa in halkan laga tago ayadoon dadka aysan isku qaldin qabiilka iyo qabyaaladda farqiga u dhaxeeya marka walaalahay waxay la dagaalamayaan ee caawa halkan u imaadeen waa inay la dagaalamaan qabyaaladda ma ahan qabiilka lama tirtiri karo diinta islaamkana kor ayay u qaaday qabiilka laakiin qabyaaladdu way la dagaalantay Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayuha an-naasu inna khalaqnaakum wardadow waxaan idinka abuurnay inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha waxaan idinka abuurnay lab iyo dhadig rag iyo dumar haddana intaas loogama harine waxaa la yidhi wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu waxaan idinka yeelnay nations group ayaan idinka yeelnay si aad isugu garataan inna akramakum cinda allahi atqaakum inna allaha caliimun khabiir marka waxaa idinkugu karaamo badan kiinii waxaa idinkugu karaamo badan alla ka cabsiga la imaado ma ahan kiinii laandheeraysan ma ahan kiinii qabiil weyn ka soo jeeda oo hub haysta laakiin waxaa idinkugu karaamo badan kee midka alla ka cabsiga la imaado waxaan rabaa su-aal yar inaan idin weydiiyo kulligiin qofkii jawaab ii hayaan waxaan gacanta ha taago anybody oo halkan jooga oo qabiilka oo ka dhashay iyo waddanka oo ka dhashay
kulligan Soomaaliyan haye doortay miyaa jira qabiilka aad ka dhalatay qofkii doortay oo dhahay aniga waxaan rabaa reer hebel inaan ka dhasho hadduu halkan joogo raise your hand I want to see it. Thank you. That's what I thought. That's what I thought. sababta idin weydiinaa waxay tahay qabiilka adiga aad ka dhalatay maadan joos gareynin qabiilka aniga aan ka dhashayna maanan joos gareynin Allah subhanahu wa ta'ala ayaa noo joos gareeyay sideen marka ugu faani karnaa wax anaga aynan shaqaysanin sideen ugu faani karnaa wax aadan Allah ma aragtay subhanahu wa ta'ala oo ku sababay inaad ka dhalato oo adiga aadan shaqaysanin inaad ku faanto oo midka kale ku yeesto waa waxaan meesha ku jirin runaantii Soomaaliduna waxay moodaa in qofka qabiilka uu ka dhashay sidoo u dhaqmay markaad fiiriso inuu asaga joos gareystay oo dhahay qabiilkan aan rabaa qabiilkan ma rabo sida waqtiga oo aad u yar daraadeed waxaan isku dayaa inaan soo gabagabeeyo Nabi Aadam waxa laga abuuray ciid annaga dhamaanteena waxaan ka soo jeednaa ciid ciidu waxay u kala baxdaa saddex ciid Nabi Aadam ciid laga abuuray saddex ciid ayay u kala baxdaa ciid gaduudan ciid madow iyo ciid cad dadka bini aadamka ah oo ibnu aadam oo Nabi Aadam dhalay waxay kala noqdeen dadka sida aragtaan dad madow dad cad sidii ciidda ayay u kala baxeen kalaradii ayay kala qaateen Nabi Aadam sidoo kale waxa ciidii laga abuuray waxay ahayd ciid jilicsan iyo ciid adag ciidda adag macnaha ay u jeedo waxay ahayd in dabeecadda dadka bini aadamka ay noqon doonto qaar kamid ah dabeecad qalafsan oo adag dabeecadda bini aadamka qaar kamidna ay noqon doonaan dabeecad jilicsan ee qafiif ah macnaha ciidda looga jeeda ayaa taa ahayd there is a saying that says anxiety insane craziness it's something that you repeat again and again and you wait a different result the one before I'm feeling in a different thing there is a saying that says insane is something that you repeat again and again and you wait a different result the one before waxaad ku celceliso walidu waa he waxaad ku celceliso haddana aad sugto wax ka duwan jawaabtii hore dadka Soomaaliyeed waxay ku celceliyaan qabyaaladooda waxay ku celceliyaan inay iskala saaraan waxay xoog saaraan oo isu fogeeyaan qabiil iyo maxaan ku yiraahdaa reer hebel haddana waxay sugaan miro wanaagsan inay gurtaan laakiin mar walba waxaad moodaa inaan miro wanaagsan aynan ka guranayno miro qaraar aan ka gurano waxaan kusoo gabagabeynayaa aan isu dubnaan especially dadka dhalinyarada ah waxaan rabaa inaan message u diro oon ku iraahdo generationka odayaasha aabayaasheen awoowayaasheen waqtigooda waa dhamaaday wuuna sii dhamaanayaa laakiin muhiimadda waxay tahay dadkiina cusub ee hadda soo baxay in generationkanna aad badbaadisaan kuwa soo socdana aad badbaadisaan insha Allah ta'ala maxaa yeelay odayaasha aabayaasheen awoowayaasheen annaga generationkeena kamaysan fikirin way isqabqabsadeen way isdagaaleen generationkeena way iloobeen ayaga ayaa isku mashquulay maxaa dhacay nasiib darro waxaan noqonay dad aan nasiib lahayn oo dawlad iyo dalkoodii aan arag dhamaanteen halkan waxaan keenay waxay tahay isqabqabsigoodii ayaan la soo qaxnay marka aan midowno aan hal noqono haddii kala mid haddaan kala baxbaxno nin walba meel cidlo ah ayuu dhulwaa ku cuni doonaa sidaa daraaddeed waxaan kusoo gabagabeynayaa inaan midowno asalaamu calaykum waraxmatullahi